agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland mudane Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo sabtida 22ka August socdaal shaqo ku yimid gobolka Gabiley ayaa kormeer ah wacyigelin xanuunka coronavirus iyo sida ay mashruuca GPLG uga qayb qaateen xanuunkaasi ku soo maray dugsiyada waxbarashada degmada Gabiley iyo deegaanada hoos yimaada. Kormeerkani ayaa agaasimaha guud waxa ku wehelinayay saraakiil ka tirsan mashruuca horumarinta dawladaha hoose ee maamul daadajinta GPLG-ga maamulka dawladda hoose iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo markii kormeerkaasi soo ilaaday warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kormeerkani ujeedadiisu ahayd sidii ay soo indhayn lahaayeen sida mashruuca maamul daadajintu uga qayb qaatay ka hortagga caabuqa COVID-19 ee dunida caalamka ku baahaya. waxana uu sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadku sheegay in ay kormeer ku soo mareen ugu yaraan 11 degmo oo mashruucani ka fulay. waxaan halkan ka cadeynaynaa guud ahaan degmooyinkan soo marnay iyo gaar ahaan degmadan aan joognaaba inay si wanaagsan oo wax ku oola ay u bilaabeen oo uu socdo. waxaynu soo marnay iskuulo loo sameeyay musqulihii loo hagaajiyay meelihii faraxalka qalab iyo agab la iibiyay oo agabka nadaafadda iyo agabka ka hortagga xanuunkana baynu aragnay inuu halkan ku aragnay oo ku kaydsan awgiisiiba. xanuunkan sida aad ogtihiin waxay nooga yimid dunida iyo waxa dadkeena iyo dawladeena iyo dawladaheena hoose iyo ummadeenu ay ku bixiyeen 90% ayay noqonaysaa waxa uu dadkeena iyo ummadeenu ay bixiyeen. wali 10% ma dhama dunida oo dhan waxay nooga yimid hadii la isku wada geeyo. dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdi Yuusuf Daahir Goole xogayaha fulinta dawladda hoose iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda mashruuca maamul daadajinta ee GPLG-ga. agaasimo guud annagu hadda dib baan boorka uga jafnay waanaanu bilaabanay mashaariicdii wixii hawlaheega ahayd muddadii COVID-19 kana waxaan isku dayaynaa inaanu gaabkii dhacay aanu inta sanadka ka harsan dhamaystirno oo aananu sanadka dambe ugu naga gelin qalabka aanu soo iibinay in aanu ku darno mooyaane halkii aad ugu tala gasheen 480 kartoon oo jaafeel aanu keenay halkii markii hore mar 60 baad ugu tala gasheen 80 kartoon oo shampoo ayaanu keenay mid walba libilaab ayaanu ka dhignay anagu. Sikariye Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley.